su-aasha kale waxay u dhacaysaa sida tan. assalaamu calaykum sheekh, magacaygu waa cabdiraxmaan cumar. sheekh, waxaan weydiin lahaa, aniga waxaan jiiftaa subaxii, waxaan soo kacaa maqribkii, salaada iga tagta, seen u kala hormarinaya? qofkan wuxuu leeyahay waxaan muxuu ahaa subaxii ayaan seexdaa, maqribkii ayaan soo kacaa, marka salaadihii intaasoo dhan waa ay dhaafaan, marka see u kala hormarinaya? alxamdulilah. horta marka koowaad waxaan dhihi lahaa warniyo salaadaha sidaa u dhaan. haddii dano kale la leeyahay saacadii waxbaa la buuxsan lahaa. salaada subaxna marka la aadaamayo baa loo aadaamaa asalaatu khayru min annowm, salaadaa hurdada ka khayr badan. saacad iyo dad iyo wax ku kiciya salaadaha wakhtigood aad kuba noqotid haddaad rabtee wakhtiga salaadaha wax ku kiciya inaad dadaasho wax loo baahan yahay wey. markii taa laga soo taga hadday dhacdo salaada hurdo inay kaaga tagaan ama halmaan kaaga tagaan oy noqoto dib inaad ka soo tukato ood ka qadaysaay sida fiican mise intaba sida bannaan. way bannaan tahay tii aad hormariso iyo tii aad dib marisaba, annagoo ku salaynayna wax daliilahoo cad oo waajibiya sida loo kala hormarinayo wujuub iyo waajibnimo faa'iideeyaayey inaanan haynin. laakiin sida fiican waa say u kala horreeyeen inaad u kala hormariso oo duhurka horeeyo, casarkuna ku xigo, maqribka hadduu tegayna maqrib ku xigo. taas ficilka nabigaan haynaa sala allahu alayh alih wasalam. dagaalkii khandaq ama axzaab markay godka qodayeen maalin maalmaha ka mid ee dhowr salaadood halmaameen, xilli dambey xasuusteen. nabigu alay slam say u kala horreeyeen ayuu u kala hormariyey. saa darteed waxaynu leeyahay ficilka nabigu alay slam oon amar la soconin wuxuu faa'iideeyaa wuxuu inuu sunno yahay. sunnaduna waa sida fiican ee fadliga badan waaye, laakiin si ka duwan haddii la sameeyo dhib ma laha. halkaa waxaa imanaysa dalabatulcilmiga qaar ka midii inay akhriyaan adwaa ulbayaanka sheekh maxamed alamiin ashanqiiti tafsiirkiisa cinda qowlihi tacaala fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu salaata waatabacu shahawaat, oo isagu ka dhigaya ficilkaa nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa waajib leh. marka waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo dadka dalabadii, sheekhu imaam mufasir uu ahaa laakiin faqiih maaliki buu ahaa. fuqahada maalikiyada qaba ficilka cibaadada ee nabigu alay slam wujuub buu faa'iideeyaa. taasuuna ishaaraya saaxiibu maraaqi sacuud oo sheekhu soo qaadanayo wa kullu maa fiihi sifatu tujhalu falilwujuubi fi lasaxi yajcalu. laakiin asaxu lqowleyn cinda ahli lcilmi fiqiga iyo usuulka ficilka mujaradkii wujuub ma faa'iideeyo. saa darteed ficilkii nabigu sameeyey sunanimuu faa'iideynayaa ee baabulwujuub maaha. masaladuna masalaha usuuliga u noqonaysaa, way fiicantahay inaad say ahayd u kala hormariso, qasabse maaha. bilahi towfiiq. sheekh, qof kale ayuu wuxuu leeyahay assalaamu calaykum, magacayga waa Salaad Maxamed.